dadkaygu Puntland dalkiina darajo weyniyo qiimi ku leeday ogaadaw nabadda dayro adkeeya dadkaygu Puntland dalkiina darajo weyniyo qiimi ku leeday ogaadaw nabadda dayro adkeeya dadaalay reer Puntland oo dadaalay dalka beero biyay nimcadiiniyo badalka daahane durugsanayniyo deeqda ilaahay daldashow dalka beero biyay dadaalay horumar doono dadaalay. Thank you, Your Excellency, Mr. President, Vice Minister, the Mayor. Thank you for donating this land to UNICEF. This is my first visit to Garowe. Not the first visit to Puntland, but I'm actually very honored that during this first visit I can receive as well this land in the name of UNICEF from the government and lay the stone here. It doesn't happen very often. Then when you have your first visit, this kind of things happen. I really would like to thank you for your generosity of doing that. It's really a sign of your commitment as well to women and children in this country, and I'm very touched by it. For us, UNICEF, it's also a sign that when we're going to construct here, our engagement is not a short-term engagement. It's an engagement for the long term, a continued support for the women and children in Puntland. As we did all these years, past years, we also will do this for the future. And when we build a building, we will stay here long, together with the government, together with all the partners, to make life of women and children better for this country, and indeed make the future of this country much brighter. Thank you, Mr. President. Thank you, dear guests, for this honor that I could perform today. Thank you. نفرح وين بين نوتين ما أنتنا ده حد يقولنا اسمها هي دا يونيسيف أكاد السنة يسوع بونتلاند سيدا وشيء ماير كنا وهذه صدحات بنومرنا هو WFP marka laga soo tago way hadda saddexaad ay rabteen dhisato taam cineedu waxa weeye inay Garowe ama Puntland ay noqonayso hab ama se center weyn hay'adaha qaramada midoobay waxaan rajaynaynaa in hay'ado badan oo kale oo UN-ka laftigooduna inay ku soo daba jiraan imaan doonaan iyo hay'ado kale oo caalamiyaba dabcan waxay imaanayaan waxa weeye iskama imaanayaan waa nabadgelyada Puntland waa ammaanka Puntland waa dawladnimada Puntland waxa soo jeedanaya waxaan rajaynaynaa marka haddana shacbiga iyo dawladda reer Puntland ba inaan horseedno nidaam wanaagsan oo horseedi kara in hay'adaha caalamiga ah ay ku tartamaan noona yimaadaan in taasina marka waxay imaan kartaa oo kaliya markay naga muuqato annaga wadaniyad ay naga muuqato ixtiraam uu naga muuqdo dawladnimo ay naga muuqato kala dambeyn ay naga muuqato maalinlada waxaan runtii ku bogaadinayaa meeyarka ka hadlayay dhul ama dawladdu leedahay ama aysan lahayn dhulka la isaga habsanayo dhul tiro badan oo aad u weyn oo dad aan isticmaalayna iska jeexanayaan isagana habsanayaan hadda waxa weeye hadii dhulkii la wada qaato
xagee baa la degaya dowladda xagee degaysa haadii xagee degaya marka aanu dhulkeena beeqaansano in aanu garanno in haddii shacbi iyo xukuumad ahaanba aan la wada shaqayn wada shaqayn kala dambeynta iyo amniga iyo nidaamka iyo dowladnimada dan waxa way wax badan oo hadda waxyaabaha hadda aan ka hadlayno meesha u taaganahay ka mid yihiin ayaan ku waayi doonaa hay-adan marka UNICEF la yiraahdo waa hay-ad runtii aad u wanaagsan sida uu sheegay country director-ka ka shaqaysa xanaanada iyo caafimaadka caruurta iyo dhallaanka iyo hooyooyinka iyo oo dadka dalka ugu nugul weeye marka inaanu soo dhaweyno ay deegaan ku yeeshaan Puntland shaqo fiican ka qabtaan hadda waxay sheegayeen sanadkii yani lacag ilaa $20 milyan ayay geliyaan barnaamijyada noocaas oo kala caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii la mid ah marka waa hay'ad muhiim ah shaqo fiican ka haysa hay'adaha ugu muhiimsan UN-kana ka mid ah marka inay soo degaan si rasmi ah dhismayaal ka samaystaan staffkooda soo badiyaan shaqaalahooda keenaan wax badan bay keenaysaa waxay keenaysaa in ay wadankii soo degaan in shaqaale badan yimaado in yani dhaqaale badan xataa dadka Soomaalida ah ee ku nool ay ka abuuri karaan imaatinka hay'adaha laftigooda marka anana waa dhiirigelinaynaa kuwa kale badan waxaanu ku dhiirigelin doonaa insha Allah inay yimaadaan waxaan rajeynayaa dhismo inuu bilowdo sida ay sheegeen sanadka cusub bilowgiisa guul iyo khayr baan rajeynaynaa Puntland hadii la yiraahdo waa maasanta مانتي ضرورها سيديا حاجاتي حالك كورتاي كودايدو ماريس دقاي كرات شاي دنيا مانتي ضرورها سيديا حاجاتي حالك كورتاي كودايدو ماريس دقاي كرات شاي اي ددالاي ددالاي اني قدير تو ددالاي